Khabib Nurmagomedov waxa uu ka mid yahay ragga ugu caansan ee ciyaaraha loo yaqaan MMA-da. Sidoo kale Khabib waa ciyaaryahanka aan laga adkaan 28 ciyaarood oo isku xigta, taasoo ka dhigan inaan laga badin intii ciyaarood uu ka qayb galay. Waxaana la waayay dhinaciisa dhulka dhigta. Haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 xaqiiqo oo ku saabsan Khabib Nurmagomedov. Daawasho wacan. Nambarka koowaad waa mid aan laga adkaan intii ciyaar uu ka qayb galay. Xaqiiqda koowaad oo ay tahay inaad ka ogaatid Khabib waa inaan hal mar dhinaciisa dhulka la dhigin. Khabib waxa uu ciyaaray guud ahaan 28 ciyaarood, 28na waa uu badiyay. Ma jiro xidig awooday inuu dhulka dhigo ama uu ka adkaado Khabib. 28 ciyaarood uu ciyaaray, 8 ka mid ah waxa uu ku adkaaday wax loo yaqaan knockout-ka ama feerka tooska. 10 ka mid ah waxa isdhiibay raggii ka soo horjeeday, 10na waxa go'aamiyay garsoorayaasha. Khabib waxa uu ciyaartiisii ugu horeysay MMA-da ciyaaray sanadii 2008, da'diisuna waxay ahayd 20 sano. Nambarka labaad waa mid ku adag diinta Islaamka. I want to say thank you for God. God is number one. Other things is nothing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mid ay muhiim tahay inaad ka ogaatid Khabib waa inuu yahay qof ku adag diinta Islaamka. Wax walbana waxa uu ka hormariyaa diintiisa. Khabib waxa uu gebi ahaanba diidaa inuu dagaalamo bisha Ramadaan si uu u guto waajibaadkiisa diimeed. Sidoo kale ma cabo khamriga. Sidoo kale waa muslimkii ugu horeeyay ee noqday UFC Champions. Waxauna dunida ku leeyahay malaayiin taageero oo muslimiin ah oo uu ka mid yahay qofka hadda muuqaalkan kuu soo gudbinaya oo ah aniga. Nambarka saddexaad waa kan ugu caansan dagaalyahanada ka soo jeeda dalka Ruushka. La yaab maahan inuu Khabib noqdo ciyaaryahan leh taageerayaal fara badan, laakiin waxaad ogaataa in taageeraha ugu badan uu ku leeyahay dalka Ruushka. Sidoo kale waxa uu ka yahay dalka Ruushka haliyay qaran. Sidoo kale jasiiradda Forbes waxay u aqoonsatay qofka ugu saameynta badan dalka Ruushka. Waxa uu haystaa hanti gaaraysa $12 milyan. Sidoo kale waxa uu baraha bulshada ku leeyahay shacbiyad badan. Waxa uu 15 milyan oo followers ku leeyahay bartiisa Instagram-ka oo kaliya. Nambarka afaraad waa midka ugu wanaagsan markay timaado dafmada ama lagdanka. Khabib waa mid aad khatar uga ah markay timaado dafmada ama qofka la lagdo. Waxa uu haystaa rikoorka ugu badan ee qof la lagdo hal ciyaar gudaheeda. Dagaalkii uu galay Abou Diawara, Khabib waxa uu awood u yeeshay inuu 21 jeer lagdo Diawara, waana kan ugu badan ee sidaas sameeya hal ciyaar gudaheeda. Nambarka shanaad waxa uu noqday ninka sameeyay saameynta ugu weyn kadib ciyaar dhamaadkeeda. Guushii uu ka gaaray ninka kibirka iyo isla weynada badan ay gaaladana buunbuuniso ee Conor McGregor. Ciyaarta kadib Khabib waxa uu sameeyay ficilkii ugu weynaa ee taariikhda MMA-da. ciyaarta kadib Khabib waxa uu ka booday shabaqa si uu u weeraro qaar ka mid ah tiimka Conor McGregor, waxaana dagaal adag dhexmaray tiimka Khabib iyo tiimka McGregor. 3 ka mid ah asxaabta Khabib ayaa la xiray. Markii Khabib dhacdadaas wax laga weydiiyay waxa uu ku jawaabay sida tan. First of all, I want to say sorry to Athletic Commission, Nevada, sorry to Vegas. I don't understand how people can talk about I jump on the cage, What about he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus, he almost killed couple people. What about this? Dhacdadaas darteed Khabib waxa lagu ganaaxay lacag dhan $5 milyan. Waxayna noqotay dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacda taariikhda MMA-da ciyaar kadib. Nambarka 6 waxa uu madaxa ku sitaa hidaha dhaqankiisa. Ciyaar kasta ka hor Khabib waxa uu xiran yahay koofiyad oo ka samaysan suuf. Haddaba maxay tahay koofiyada? Waa mid dhaqan ahaan uu sito ka soo jeeda dalka Dagestan oo asal ahaan ka soo jeedo Khabib. Koofiyada waxa laga sameeyaa maqaarka idaha, waxaana xiran jiray ciidanka waddanka Dagestan oo ka mid ahaa wadamadii jiri jiray xilligii midowgii Soviyeeti ee burburay. Waxaana ilaa hadda xirta koofiyada noocaas ah ciidamada dalka Ruushka. Nambarka 7 waxa uu ku tababaran jiray yaraantiisa xayawaanka loo yaqaan biirka. Waxa uu ku soo koray dalka Ruushka. Yaraantiisa waxa uu ku tababaran jiray xayawaanka loo yaqaan biirka. Aabihiis oo askari hore waxa uu xilliga dhalashadiisa u keeni jiray biirka si uu ugu tababarto. Waana sababta ka dhigtay Khabib midka ugu wanaagsan dafmada iyo lagdanka marka la joogo MMA-da. Nambarka 8 waxa lagu naaneysaa gorgorka. Waxa lagu naaneysaa Khabib gorgorka, laakiin waxa uu cadeeyay inuu yahay gorgor kadib ciyaartii dhexmartay isaga Conor McGregor. Ciyaartii kadib Khabib waxa uu shabaqa ugu soo booday sidii gorgorka oo kale, asagoo weerar ku qaaday Dil Jones oo ka mid ahaa tiimkii McGregor. Nambarka 9 waxa uu haystaa rikoorka ugu hadalheynta badan ciyaaraha MMA-da. ciyaartii uu la ciyaaray Conor McGregor ee UFC 229 ee dhacday October 6, 2018,
waxay ahayd ciyaarta ugu badan ay cid walba rabtay inay dhacdo, waxaana ciyaarta saas qiimaha ugu yeelayay in labada ciyaartoy ay isdhaafsadeen hadallo kulkulul, iyo weliba in McGregor uu soo weeraray Khabib dhowr jeer, iyo weliba in bas uu Khabib saarnaa muraayadda ka jibiyey. arrintaas ayaana ka dhigtay ciyaarta ugu weyn ee dhacday 2018, waxaana ciwaanada qabsaday Khabib oo dhulka dhigay McGregor. Nambarka 10aad waxa uu haystaa rikoorka labaad ee ugu dheer guulaha isku xigxiga marka laga hadlayo knockout-ka ama in lagu kala baxo fiirta. Khabib waa kan labaad ee haysta rikoorka ugu badan guulaha isku xigxiga ee knockout-ka, waxa uuna guuleystay 11 ciyaarood oo isku xigta. waxa kaliya ee ka horeeya Tony Ferguson oo haysta 12. Number 1 bullshit. sidoo kale Khabib waa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee u dhashay dalka Ruushka oo ku guuleysta suunka UFC champion.